ayaa magaalada Kansas ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka waxa ka dhacday arrin masiibo ah oo si weyn u taabatay dhammaanba guud ahaan bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Mareykanka. arrintaasi ayaa waxay ahayd markii 25 jir ka tirsan oo la kala oran jiray Cabdiwaaxid Cabdicasiis oo 15 jir ahaa iyo inanka kale ee ay walaalaha ahaayeen oo isagana Cabdiraxmaan Cabdicasiis la oran jiray. ninka dilka geystay ee walaalaha ay ahaayeen oo 25 jir ahaa ayaa isagana waxa la oran jiray Hanad Cabdicasiis. ninkaasi dilka geystay ayaa markii dambe waxa isagana dilay ciidamada booliiska. haddaba telefoonka magaalada Kansas ayaa goor dhaweyd waxaan kula hadlay nin ay ilmaabti amaba ilmeeda ay ahaayeen raggaasi ku dhintay magaalada Kansas oo la yiraahdo Maxamed Cabdi, waxaana uu iga waramay sidii arrintaasi ay u dhacday. adeer waxa u dhacday abaaro adigu COVID-19 iyo wax kala ah ciyaalku masaajidka taraawixda ka soo baxeen. ciyaalku saddex ay ahaayeen guriga ayaa waxa ku dejiyay nin kamid ah familka laftiisa iyo xaafadaha u dhow degan. ninkaas saddex ciyaalka dhigay oo labadan wiil oo dhimanaysa iyo nin eedado dhashay. markii saas loo dejiyo ciyaalkiiba ninkan waxay u egtahay inuu baakinkii meelaha ku sugayay waa ka soo dawarday. labada wiil oo dhimanaysa ka yar buu dhabarka ka toogtay. kii kaloo albaabka taaganna waa ka daba tegay madaxa ka toogtay. kii saddexaadoo eedado dhashay la socday ciyaalkana madaxu ka saaray baashi baa u dhici weyday. markaasuu gaariga ku laabtay oo wuxuu raadsaday xabado iyo jeebkiisa wuxuu gacanta geliyay maqaan. albaabkii ayaa la furay markaas. kii yarka albaabkii siduu ku galay sidii baa booliis lagu wacay sidii uu ku carray. marka labada inana ay walaalo ahaayeen uu toogtay halkii bay ku dhinteen miya? halkii bay ku nafbaxeen. sababta midkii weeyaan madaxu ka toogtay kan kalena meel kaloo hadda uu ka toogtay ma sheegi karo, laakiin dhabarka unbaa kii yarkaa xogtuna siiyey aan saasan ku hayna. labada inana markaa geeriyooday da'doodu maxay kala ahayd Maxamedow? da'doodu waxay kala ahayd 14 jir iyo 17 jir. waatay ninkan walaalkooda dilka geystay isagana markii dambe la dilay isaguna mis jir mu ahaa? isaguna wuxuu ahaa 15 jir. warar iskhilaafsan baa soo baxay Maxamedow, qaarkood oranayaan khilaaf baa family-ga ama qoyska gudahooda ka jiray. qaarna ninka dilka geystay ay leeyihiin xanuunka maskaxdu qabay oo xagga dhimirku ka xanuunsanayay. arrimaha maxaad nagaga beerin karaysaa? neehu dadka horta Soomaalidu waa taqaanaa oo dadka intaas sano aad ku soo dhexlaakaatay iyo qaabkii u hadlaan. anigu familka ayaan kamid ahay libada xog ogaal baan ahaa waxaan oo dhan. wax hadda maaragtay family is haysta oo ma jiraan, balse dib hore hadda ka dhacay uu jiray. dibkaas horaan umana joogin wadanka New nabadsiga waska ahaa. laakiin hadda tan dhacday neeho wax cunugaas asaga anugu arkay ama markhaati ka ahay oo la safano inuu dad dilo la safano ma arag. marka wax hadda family oo kala qaybsano weyn ma arkin anigu. laakiin waxay ugu maqaalaa inay isku college ahaydeen ninkan dilka geystay. xaaladiisu sidee ahayd? aniga anuga sidaad ogtahay wadanin oo wiil abtigii dhalay. anigu lama soo korinoo wadankii Soomaaliya Ethiopia meelahaas ku soo koray anoo wadanka qangaara imaaday. college-ka ayaan isla bilownay. xaaladiisu markaas saan waa dhaantay oo waxyaalo inuu kaaga sheekeeyo maahan oo dhahayo maaragtay aniga ninba hooyadii dilay oo inaan aarsadaan rabaa iyo waxyaalo noocaas u dhihi jiray. balse marna anugu kama maqal ciyaal yar oo walaalahayaan dilayaa. laakiin waxyaalo noocaas oo familka qaar baan dilayaa iyo waxyaalo noocaas oo igu dhihi jiraan laftayga. marka miyaanay dareen idin gelin hadallada noocaasa ama adiga uu kuu sheegay ama dadka kale uu sheegi jiray bilayska iyo ma u sheegteen dawladda? anigu shakhsiyan wax bilis aan u sheegay ma jirin.
balse dadka familka qaar ka mid ah waliba gabadhii carruurta haysay wax badan buu handaday wax badan baa iyada laftigeeda waa ku dilayaa waa gabadhii eedadiisa ahayd waa ninkii hore adeegsaa la dhalatay se afkeeda iga sheegtay ay xarunta booliska tagtay ninkan halis buu ugu yahay booliska Mareykanka waxaan moodaa inay sugaan qofku ilaa wuxuu dilayo ayadu waxyaalo walow aysan waxyaalo badan soo qufayno sida waalidku macnaha u calool jilciyeen Soomaalida waa taqaanaa waxyaalo badan oo threat ah oo aad u qaabdaro maartay oo ku soo handaday gabadhaas miskiinta iyo ciyaalkaas walow aysan deeply waxay dhan u report gareen haddana way report gareysay si guud way u sheegtay ninkan inuu halis ku yahay una dhaarto waxa weeye dilkan hadda dhacayna iyada laftigeeda uu socday Ilaahay waa ka badbaadiyay marka laakiin waxaan moodaa booliska Mareykanka inay ka cagishiidayaan dhowrka jeer oo loo report gareeyay aysan waxba ka soo qaadin marka kiis noocan oo kala markaad eegtina haddana waxaad moodaa boolisku inay sugaan qofkii wax dilay sababtoo ah hadda xarunta booliska dacwaysan qofkii waxaa lagu leeyahay waxyaalo badan iyo cadeymo badan iyo waxyaalo badan iyo wareeg badan baa lagu weydiinaya qofkiina waxaa laga yaabaa dariiqaaga hor yaanu ku yiraahdo ma noolaanaysid xilligaas baan ku dilayaa marka waxaa laga yaabaa inaad duuban baa laga yaabaa maxamedow laakiin sida wararkaanu ku hayno markani maaha markii ugu horreysay qoyskiina intay Mareykan joogeen ay dhibaato ku timaado sanadkii 2009 ayaa waxa la sheegayaa in ninka imika walaalihii laayay in hooyadii iyaduna ay gacan kale ku baxday bal hadda taana tafaasiil laga sii arrintaas anigu dee waddanka ma joogin waxa weeye laakiin intaan ka maqlay ama aan dhegay waan ku sheegi karaa walaalow arrintaas ayadana dhacday xanuun badan bay ahayd in kale abtigeeyo hadda dhintay baan goor subax rabay inuu ciyaal qaado dugsiga u qaado ciyaalka wiilkan uu ka mid yahay 2009 ninka 25 ka jiray waa yaraa dabcan marka ciyaalkii waxay ka war heleen maamadii ma soo kacayso kadibna waxaa loo maleeyay loo badiyay inuu ninkeedii uu dilay xalay intay hurday kadibna ninkii way booliskii raadsadeen ninkii waa la report gareeyay ninkii ayay sidii ku xireen arrintaasna niyo saas ayuu dhacday dadku waxbay isla dhex marayaan dadka waxay leeyihiin qaar waa qaybsameen qaar waxay leeyihiin isaga dilay dadka qaar waxay leeyihiin muuse dilay niyo arrintaas waxa weeye ninka horta isla markii ma baxsana waa la xiray muddo ilaa wuxuu xirnaa 5 sano mise 4 sano meelahaas ah buu xirnaa dabcan booliska Mareykanka intaas baaritaan iyo xog badan bay raadinayeen waxbay ku heleen mise ku waayeen anigu ma caddayn karo hadda balse way soo daayeen markay soo daayeen airportka ayuu ka dhoofay Soomaaliya u aaday magaalada Gaalkacyo dhow tuulo Bursaax la yiraahdo ayuu goor subaxa ka baxay magaalada baadiyaheeda meelaha uu ku weysaystay uu tukaday meeshii asagoo yaala rag baa raad qaaday oo meesha iska tuulo ciidaas qof kreedkiisa waa la arkayaa kaba maqan kaba buudo raadka la qaadi karay wuxuu qabay marka asaas baa asagana lagu helay marka imika 3 meyd baa idin yaala qoys ahaan goorma la aasaya haddii aan la yidhaa niyo maalinka Mondayda baan ku wadnaa maanta oo Axad marka bari waxaan ku wadnaa haddii xilli hore noo soo daayaan inaan 3 isla aasno